xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigay buug laga qoray aafada tahriibta ayaa lagu qabtay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. xafladan ayaa ahayd mid kulmisay hal door kala duwan oo isugu jiray siyaasiyiin, abwaano, aqoon-yahano, salaadiin, qorayaal, dhalinyarada jaamacadaha iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa madashan ka hadashay qoraaga buuggan oo magaceeda la yiraahdo Deeqa Maxamed Faarax Soomajeste, waxaana ay si qoto dheer uga warantay sababaha ku kalifay inay buuggan qorto. Deeqa Soomajeste waxa kale oo ay ka warantay sababta ay ku dooratay magaca buugga oo la yiraahdo Baroortu Orgiga ka weyn iyo 12 qodob oo sal u ah tahriibka oo buuggani qeexayo. waxaanay ka codsatay bulshada inay si toos ah loogu istaago isla markaana loola dagaalamo tahriibta oo loo joojiyo. buuggan qorayay amba fikirkiisa waday ilaa 3 sano. sababahan aan tobankan aan qoray waxay ka duulayeen sababii aan ugu waday ayay dhalinyarada aan arkay inuu socda waxaan kula kulmay qodobada dhalinyarada soo taagtay kuwiisoo badbaadey badii saxaraha waxaan xataa ku arkay dhalinyarada u sii socda oo doonayay inay tagaan aniga waqti buuggan aan ugu jirin bayaan qoro ayaa weydiin jiray dhalinyarada oo aan waqti ma lagaana. gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax ayaa isaguna halkaasi ku soo bandhigay maanse qiimo badan oo ka hadlaysa aafada tahriibta. sidoo kale Abwaan Maxamed Aw Cali Cartan Haldeeq ayaa madashaasi ka hadlay. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe, qoraa Maxamed Baaruud Cali iyo Maxamed Saleebaan Cumar iyo sidoo kale Professor Axmed Yuusuf Golcade oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa bulshada ku dardaaray in si feejigan loogu dhug yeesho tahriibta isla markaana la isu kaashado sidii loo joojin lahaa. waxaana ay ku taliyeen in la tixraaco oo fure looga dhigtay tahriibta joojinteeda buuggan ay qortay aqoon-yahan Deeqa Soomajeste. gabagabadii munaasabadan waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland Mudane Maxamed Xuseen Dhabeeye, waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay qoraaga buuggan isagoo ballan qaaday in wasaaraddiisu ay kaalin muuqata ka qaadan doonto hirgelinta buuggan iyo fidintiisa, waxaana uu bulshada ugu baaqay in loo midoobo joojinta tahriibta. qoraaga buuggan ka hadlaya tahriibta ayaa ah gabadh da'yar oo degan dalka Holland, waxaana ay dadaal badan ku bixisay sida ay bulshadeeda ugu bandhigi lahayd khasaaraha iyo dhibaatooyinka tahriibta.